iyo weersan isoo wacee warsan iyo weersan isoo wacee usoo wacee warsan iyo weersan usoo wacee. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. walaalyaal dadka sharafta leh ee kulanka ka soo qayb galay kana yimid waddanka qaybihiisa kala duwan oo isugu jira dadkii bulshada horseed ku ahaa, laakiin waxaa muhiima inta la isdhihi karo bulshada ayay horseed ku yihiin odayaasha, dadka dheergaradka, dadka wanaagga jecel, odayaasha, haweenka, dhalinyarada. dadkaas ayaa muhiim ah in la helo si fariinta uu adeer wado loogu dhibo iyaga usii gudbiyaan. marka horta akhbaraadda aad naga aqbasheen inaad kulanka nagala soo qayb gashaan oo aadna dhegaysateen aad iyo aadaan idinka mahad celinaynaa. soo dhawaada. dadka halkan fadhiya runtii waa dad ka kala yimid waddanka Holland qaybihiisa kala duwan. sida aan kuu sheegnay hadda ka hor, soomaalida waddanka degan waddanka Holland wuxuu uga duwan yahay waddamada kale. dadku hal meel ma wada degana, waxay ku firirsan yihiin dhammaan waddanka, magaalooyinka iyo tuulooyinka. laakiin waxaa jira gobollo dadku ay ku badan yihiin, tusaale ahaan sida gobolka yidhaaheen South Holland, North Holland, Brabant, Overijssel. marka meelaha ay soomaalidu u badan yihiin runtii dadkii deganaa rag iyo dumar leh, odayaal leh, dheergarad leh, oo kolley aan isleenahay mujtamac ay hormood u yihiin. magaalada Tilburg odayaasha kiima soo dhawaada. waa isugu wacnay inay nagala soo qayb galaan kulankan oo fariintan iyagu ay dadka gaarsiiyaan. aadan maxamed cali runtii waa nin dad badan oo soomaaliya ay garanayaan, oday soomaaliyeed ka soo tirsanaa dowladdii hore iyo dowladihii ka dambeeyey intaba. haddana wuxuu degan yahay waddanka Ingiriiska. aadan maxamed cali wuxuu u yimid fariin uu wado oo annaga markii uuna soo gaarsiiyey haddii aan reer Amsterdam iyo agaarkeeda aan u aragnay inay aad iyo aad muhiim u tahay. wuxuuna naga codsaday odagu inuu muddada uu joogo halkan uu la kulmo dadka soomaalida ah ee waddanka Holland degan, gaar ahaan dadka hormoodka ah, si uu fariintaas u gaarsiiyo. marka waxaan jeclaan lahaa inaan isaga hadalka siiyo si aan uga dhageysano fariintaas, kadibna wixii munaaqasho ah ama hadal isdhaabsi ah aan samaysano. marka kusoo dhawaaw Dr. aadan maxamed cali. mudanayaal iyo murwooyin, aad iyo aad baan ugu faraxsanahay galabtay inaan idinkala soo qayb galo shirkan ballaaran ee khiyaartii magaaladan iyo agaarkeeda ku noolaa aynu isugu nimi. intaanan marka intaa waxaan mahad u celinayaa guddiyadii ka shaqeeyey inaynu isugu nimaadno meesha tan, inoo habeeyey guriga kan. sida aan calaamadihiisa u jeedona aada moodo guri ay ku shaqeeyaan dad innaga ah, waayo calaamadeennii iyo astaanteennii iyo afkeennii baa kulli ku rashaxan. taasu waxay keenaysaa iyadana howl aynu qayb ku leenahay inuu yahay. aad iyo aad baan mahad ugu celinayaa inaynu kasoo qayb galno. aad iyo aad baan mahad ugu celinayaa inay noo abaabulaan shirkan. waxaan leeyahay cali iyo saaxiibadiis ilaahay idinka ajar siiyo. sidii la idin sheegay, anigu ayaamaha kan waxaan ka imi dalka Ingiriiska. waxaan deganahay magaalada Coventry, waxay u dhowdahay Birmingham. 4 sano iyo 7 bilood baan deganahay dalka dibaddiisa. intii ka horeysa dalka Soomaaliya gudaheeda ku jiray. in muddo ah waxaan mashquul ku ahaa markaan Soomaaliya arkay dhibaatada taagan. markaan gudihii in badan joogay
aniga way garanaysaan ama dhagaha iga maqasheen ama way aragteen cumrigeena waa ujeedaan 60 sanay ku dhowdahay intaan ummadda qaranka Soomaaliya u shaqeynayay 60kii waxaan aad ugu faraxsanahay rag aan macallimiin isla ahayn halka inuu fadhiyo hadda ii soo galay Ibrahim Macalin Mursal 60kii bishii Juulaay oo dowladda Soomaaliya dhalatay yaa noqday macallin toddobaatan iyo lixdii na ururkii macallimiinta yaan xubin ka ahaa 67 hal sano kadibna macallimiintaan madax u noqday ururkii guud ee shaqaalaha Soomaaliyeedna safarta jalaal baan noqday waxaan la soo shaqeeyay madaxweyne aadan cabdullaahi cismaan allah u naxariisto iyo dowladdiisii waxaan la soo shaqeeyay madaxweyne cabdirashiid cali sharmaarke allah u naxariisto iyo dowladdiisii waxaan la kowsaday dowladdii maxamed siyaad barre gacan ahayd allah u naxariisto salawaad waxaan noqday guddoomiyaha waxbarashada gobolka Banaadir oo Banaadira markaa ilaa aadan yabaal ilaa Baraawo markii saddexda gobol shabeelayaasha la sameeyayna caasimadda la igu reebay inaan joogo oo tacliintii wali guddoomiye ka ahay 74 waxaa la magacaabay wasiirka shaqada iyo arrimaha bulshada 76 waxaa la magacaabay wasiirka waxbarashada إلى 82 دي 6 سنوات شديتني أفرتي وحالي معي وسير كلوغي سيجي خيرات كبدا إلى شديتني سديتني وحالي مقعاوي intaa waxaan sana ahaa gudoomiyaha golaha dhexe xisbiga iyo baarlamaanka gudoomiyaha arrimaha dibadda xisbiga iyo gudoomiyaha maamulka xisbiga dowladda kollaabs haddii qaadatay burburtay muddo 93 ilaa 2000 waxaan deganay imaaraadka magaalada la Ras Khayma 2000 cartaan ka qayb galay intii ka damaysay Kenya waa ka qayb galay baarlamaanka hadda jooga baa ka haray intaas ummadda Soomaaliyeed nolosheeda iyo xaaladeeda galab walba meesha ka degayso waxba ka ogaa inta bani aadan ogaan karo haddii marka arrintu saas aan aragnimadaas aan sheegto oo aan goobjoog ka ahaa oo meeshay soo marayso iyo meesha ay xaalad taagan tahay aan ku soo noolaa Soomaaliya waxaa ii muuqatay haddayan wixii dhacay Soomaaliya isweydiin oo ayan ka tashan oo ayan isxisaabin xisaabta ulama jeedo inay wax siiso waxaan ula jeedaa war walaal maxaa igu dishay maxaa kugu dilay in la isweydiiyo hadday sidaa ay soo raan waxa ina ku dhacay oo dulmigu sidaa u sii socdo oo aad habeen walba maalin walba ka dhageysanaysaan idaacadda dowlad kasta ha la dhiso cabdiqaasim baa la dhisay cabdullaahi yuusuf baa la dhisay shariif axmed baa la dhisay haddana xasan
sheekh baa hadahaya intaasoo dhan waxaynu oran karaa waa maxaawalaad isku day wey waa wax wanaagsan maxaawalaad wey isku day wey laakiin meeshay laadahay waxaa weeye war wixii dhacay soomaaliya ma ku xisaabta maanta xaggee maraynaa ogaal baad u leedihiin maanta xaaladdeenu meel xun bay ka diraysa maanta waxaynu ka degaysaa inaynu islaynayno guryihiis maalin walba isku laynayno waxay maraysaa in layna xakumay oo layna ku xakumay dadankanu waa dad xoolo ahi kala dhiciya oo dowladihii dariska ahi africa laynoo soo diro inayna kala dhiciyaan dib marka lagu xakumo inagu ma ogin laakiin waa layna xakumay waayo ciidamada marka intaa dhowr iyo 20 kun ciidan lagu soo diray oo la leeyahay kala dhiciya beleda islaynayaan waynu ognahay ciidamadeena iyo shakhsiyaadkeena iyo waxaynu nahay iyo caruurteenu waxay yihiin isaynu isugu filannahay aad baad u leedihiin u garan kartaan markaynu inagu is-abaabulno markaynu garanno inaga shakhsiyadeena iyo sharafteena markaynu garanno inaynu isku filannahay dal ahaan iyo dad ahaan iyo dhaqaal ahaan isku filan karno arrintaas waad ogsoontihiin maanta haddaad u baxdo adduunka oo dhan kaam qaxooti ah oo soomaali haba degan maalin xasan lahaa haddii ilaahay ina ka dhigo shimbiro aadaysa oo halkaa intay ina ka saarto soomaaliya ina ka bixiso oo dhadhaab ina geyso kaamamkii dhadhaab ina kor mariso waxaynu daawanaynaa 600 oo kun oo caruurteena iyo haweenkeena oo ku baaba'san oo ku darsan markaa ka tagto oo Kenya gasho xaafadaha waxaad ku arkaysaa dadkeena iyo jiifa oo liita oo dhacsan waan ku noolaan ugu arag hadda waxaa ka sii daray inaad garoomadii kubadda caruurta ay ku cayaaraan Kenya in dadkeena ku dhex jiro hadda halkaas sii marto Kampala ama Ethiopia sii marto ama Suudaan sii marto ama Saxrada sii marto ama Liibiya sii marto waxaad mar walba meel ugu tagaysaa dadkaagii oo gacanta taagaya oo mid ku haraadan ku dhaawaca ku meecida looga tegay baad arkaysaa haddaad u gubto Itaaliya jidka haddaa ka baxdana hadda waa garan kartaa Itaaliya waxa yaala haddaa dhinaca Suuriya iyo Turkiya iyo Giriiga ka baxdana waad ogsoontihiin xaalad meesha marayso haddaa dhinaca Yemen iyo Sacuudiya halka u baxdana ogaal baad u leedihiin waa idin muuqanaysaa xaaladda Soomaaliya meesha marayso kumanaal qof baa Yemen ka baxa oo bayna Yemen iyo Sacuudiya dhex mara oo lagu ka xiran yihiin adoomo iyo guryaha lagu haysto boqolaal kale waa laga soo musaafiriyay Sacuudiya oo maalin walba xamar baa laga soo dejiyaa iyo goboladana laga soo dejiyaa oo musaafirisa oo caruurta u sita waxaynu ku noolahay wax aan la arki karin lawa kale haddaba marka maxaa talaabay aniga iigu muuqatay hadday saa taa wadcigu saa yahay maxay iigu muuqatay waxay iigu muuqatay in cashaa'irka qabaa'ilada Soomaaliyeed waa qabaa'ilo afka ka dhowri maayo takhaatiirta ayna tiraahdo Dr. Cabaas baa halka fadhiya takhaatiirta waxayna tiraahdaa cudurrada qaarkood iyaga la isku daaweeyaa daawo looga dhigaa waa takhaatiirtu ina tiraahdaa innaga qabiil baynu isku dilayeen qabiil lagu daaweeyaa oo waa sidee waxaan ku iri waa in sifa mubaashira loo shiraa mubaashir qabaa'ilada shanta ah oo barlamaanka hadda ku jira intooda kalena hadda dalka degan tahay ama gudo iyo hood meel kasta waa noqotee shantaasu ay marka hore hawiye iyo daarood inay sarkaan
hawiye iyo daarood inay sarkaan isweydiiyaan ummaddan maxaynu ku dilay maxaa igu dishay maxaa kugu dilay maxaa ay dhacday maxaa igu dhacay way inay isweydiiyaan qabaa'ilada kale maqan inay labadaasu markay doodayaan muraaqibiin usoo dirsadaan dhegaysta fadhiya meesha muraaqibiin iyaga dhegaysiya nimankaa waxa ka dhex dhacaya inay dhegaystaan sababta waxaa ka cararaya yaa loo qaadanina iyaga loo heshiinaya waxa weye inay fahmaan waxa meesha lagu hayaa waxa loo soo socdana inay tahay waxoodina tahay laakiin laga bilaabo labada dan waayo dhibtu waxa weeye waa hawiya daarood hadday labadaasu heshiiyaan soomaaliya waa heshiinaysa labadaasu hadday isla gartaan in xaaladda waa heshiinaysa iyagu waa inay isweydiiyaan maxaynu dalkan xorriyadiisii kasoo shaqayntiisii situationku siduu ahaa waxaasoo dhan inagaa dalka intaa soo gaarsiinay maxaynu qoraga isugu qaadanay oo isu gudnay markay isla afgartaan oo isla fahmaan oo iscafaan israacaan dir iyo degelaya mirif la shiraa iyagana muraaqibiin bay geysanayaan iyagii baa socda la shiraa inay u warbixin siiyaan muraaqibiintoodina waa already waaba u warrameenba raggii hore u joogay meeshii shirka oo iyaa ka socday u warramaan inay intay laysla soo maray u sheegaan in laysla ictiraafay la sheegaan in meesha wax ka dhaceen u sheegaan in laysla gartay u sheegaan iyagana ka codsadaan in dariiqaas la wada qaado sheeka kuma jiro marka in la isfahmay in afartaas isla garanayaan qaladkii dhacay inay soomaali ka dhacday soomaaliya isdishay soomaaliya islaysay soomaaliya iyadu daawo isu tahay wax ka ilaahigay iyo iyaga hadday soomaali maahan wax daaweyn karaan jiray hal qolaa hartay halkaa qolo oo anigu aan u haysto idinkuna u haysataa laakiin idina sheegahayn jasiiradaa kasoo bilow kismaayo hoos soo maray marka baracu soo maray marka soo maray marka cadday soo maray marka yaray soo maray gandarshe dhanaani soo maray xamar iyo inta kostaalkaa mari war sheekh gaarsi dadka aaggaa degan jariimada ugu xun oo soomaali ku dhacda laga galo dadkaas waa la ihaanayay dadkaa waa la laayay inta masiibo ah oo dhan baa lagula kacay la-aantood ducadooda la-aantoodna wallaahi silsaal baa ina ku dhacay inayn madaxayna la soo sooy in afartaasu u geeyaan cimaamad iyo duca u geeyaan raaligelin weydiistaan la hadlaan yidhaahdaan talow raalli naga ahaado wixii dhacay afartayadaasa ka mas-uula wixii idinku dhacay annagaa ka mas-uula maanta maalinkaa reer hebel iyo reer hebel iyo reer hebel loo haystaa ma jirto soomaaliya isku duuban baa mahashtan halkaa ka dhacay raalli hadla ka ahaado soomaali dadka halkaa deganoo soomaaliya u duceeya raalli naga ahaado dawadana u duceeya soomaaliya in soomaaliya ilaahay nama siiyo in cafwi ilaahay siiyo ilaahayna u barya in ilaahay masaabaxo in la weydiisto markay intaasu dhacdo oo shantiiba halkaas ay ku ducaystaan wasaaradda awqaafta aynu la weydiisto haddii ilaahay yidhaaho inay tiraahdo arrinta halkaasay maraysaa 3 maalin oo soona oo ilaahay ay laga baryayo in soomaaliya ilaahay isu marsho niyadeeda cafa allahuma camaa salaf iyo wixii dhacay ilaahayna ka masaabaxo in ilaahay halkaa iyadaa raxmad ilaahay ummadda soomaaliyeed isu dijiyo meesha shirku ka dhacay iyo waktiga uu dhacayo iyo tirada la isugu yeerayo
mas-uuliyaddaas haddii ala yari dowladda dhexa iskale iyo goboladeeda baa iskale iyagaa waxay doonaynaa ka shacbi yaa su-aal baa imanaysa marka yaa kasoo qayb gelay inuu dadkii hurro iman mayaane nooca anigu aanu arkay waxa weeye 6 qolo marka ugu horeysa culimada khayrka qabta isimada khayrka qaba reer walba waa leeyihiin reer walbayba culimadooda khayrka qabta isimadooda khayrka qaba ganacsatadooda khayrka qaba abwaaniintooda khayrka qaba haweenkooda ururkooda khayrka qaba ururka dhallinyarada khayrka qaba representative-kuna waxay ka imanayaan majaalaadkaas markay yimaadaan waxay ka qaybgelayaan asamblee generaale oo soomaaliya oo isugu timi way ka qaybgelayaan professional ahaan ka mihnana hadda waa uga qaybgelayaan ganacsatada oo dhan mar bay shirayaan waxay raadinayaan maxaa inoo soo shira isimada oo dhan mar bay shirayaan maxaa inoo daawaa abwaaniinta oo dhan mar bay shirayaan maxaa inoo daawaa culimadu waa shirayaan maxaa inoo daawaa haweenku waa shirayaan maxaa inoo daawaa dhalinyaradu waa shirayaan maxaa inoo daawaa intaa qolo walba markay shiraan oo hoos u da'daan misana qolo walba xogeynteeda leedahay wax alla waxay jireen bay misana asamblee generaale way la soo noqonayaan halkaas marka waxay dhalaysaa in marka laysla qaato murtidii intaasoo dhan ay soo shiileen oo baahidu keentay waayo waa qabaa qof waliba marka inuu wadnihiisii ka hadlayo calooshiisi waxay jira inuu ka hadlayo xanuunkii shala soota iyo kii u jeedo oo gurigiisa ku dhacay oo ilmihiisa ku dhacay oo deriskiisa ku dhacay oo qaraabadii ku dhacay oo seedigii ku dhacay sodogii ku dhacay xididkiisa ku dhacay waxoo dhan ka dhex dhacay waa u jeedaa marka laakiin waxaa dhici karta inuu daawo u leeyahay arrintaas waxa weeye waa arrintan aniga marka risaaladaydu waxay ahayd tabliiq programaan ku leeyahay TV-ga oo London waxaan ku leeyahay London shirar caynkan oo kale ah Sweden baa soo maray Finland baa soo maray haddana way idila jeedaa shirarba halkan waa soo qabtay London ma ku noqon doona haddii ilaahay yidhaaho arrimahaas waxa weeye waa arrimaha aan u soconay waxaan u maleeyaa uguba horreeyo aadan maxamed cali hadalkaas taariikhda daawada Soomaali loogu raadinayo cid fagaara ka tiri uguba horreyn ugubana dambayn doono in badan oo maanta Soomaali kamid dadka aynu u calacalayno waa dhalinyarada iyo wixii lamida anigu waxaan xasuusnahay Soomaaliya dadkii ka shaqeeyay qaar baa laga yaabaa inay deegaamo kooban muddo dheer xitaa ay ka shaqeeyeen oo joogeen oo ku koobnaayeen anigu Soomaaliya oo dhan baan ka shaqeeyay 94 degmayno waa ka sheegaa shir walba 96 degmo aynu ahaan jiray iyo 18 gobol 84 baan tegay 12 baa ii dhinaa kambareerkii baa igu dhacay 12 ii qorshaysay weliga askari ma ka haysan weliga isbaaran laba kulmin weliga marti kuma noqon deegaan aan tegay xulmaan xambaarsana midaan anagu leeyahay ma aha waa xurmada dawladnimo meeshaan tagaba waa soo dhaweynay reer kaarbadka gaalada isku xurmayso yaa ii yaalay hadda Soomaaliya deegaamo badan baa xilli la leeyahay markaa waxaan warro madaay waxay anigu biyaan ka shaqeyn jiray haraad Soomaaliya way naqaan dhibta ka taagan waxaan maqlayaa xalayto deegaamo kamid ah Soomaaliya oo dad ugu dhintay haraad hada waxay ku tustaa calaamada noocaasi in wax isu gurmanaya iyo wax isu ah
وهذا وحسوي هنا أن تبرب إسوهين إن يدوكي كتشتو مركا هذا الكو هذه ما تقول أي نقول على الكرة هذه قربان لو حارك إنين لبح الجباب اللي مركز تعسيش على اللي قبل ما ترى تعسيل اللي مركز هو حقوق صغري تعسيل اللي بالحيها مركا وحيلو بريسا بني آدم هذا واحد حلو أركو إنه حمانته سوء بدلها أزولين لها إنه كتر ويسوتها وعنو أفكار ونكورن فعل كدره يا واجبات كويه مركا هذا علي أنا محمد علي أنتوا يلي هذا لكم كسودة واحد بدل كدر كريمايو وحنقول لها أنا وأودي علي وأنا كنا ماذا حدا هولان دقنا هاي جالية هاي أنا كاسر نوم ماذا ح كل دقيقة ماذا دبك كويه يريان واجرا سيدا أي نوت الماني الحوار ده نسكو معمره خصوص واجرا لكن جودهان نكاس على ماذا مركي دي أنا وحنا نسكو برا نجيباتوين كجودة سوالي لا كدعة يعني نسكو برا كل ما نسكو برا ما أقول سنين ما أقول أنا ما أقول حقيقة لما أنت يقد وين دل كنت ربما الصومالي والمدبر الإسلام كان يقد وين نمر بس أنت الصومالي ده وتاجن يهيل كصومالي ده يعني أقل أو دل بدن أو صبر بدن أو دلال بدن بركة أنتم أضيف نوكيري أو نوكيري يشجع هو كيري لأن حد الله كدوه يشجع قال كل أمر الله يوقتي له أمر الله وقتي له سيم الله يوحي عن قبل الله يشجع إنه هو مضحى وحيلته يدينا ويلو قشي deegaamada aynu ka kala nimina cid waliba unugii iyadoo hay soo xilsaarto oo hadii wixii uu ay qaban karto hadii maxay tahay aan ugu tanno gurigiisu inuu gubanayo oo loo sheegay horta waa nasiib daro gurigaagu oo gubanayo oo lagu sheegay hadii nasiib daro ka weyn ma jirto inagu gurigeeni oo dhisan iyo dab leeno loo dhibo qabto dabka ku qabto oo guba markaasaynu ka aqbalnay qaab aynu u deminaynu garan lahayn maanta ama aynaan doonayba inaynu demino marka akhyaaray aadan maxamed cali intuu inuu yidhi allah inagu anfaco ilaahay kuwa u dhaga nuglaada ee wax ku qaatanahay naga dhigo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marka horta aadan kuugu mahad celiyaa mudane aadan maxamed cali waa arrin aada u fiican aniga ruqyo cadow ahaan oo wadannada xisbigan ahaa gacaankii dadkii la jaan qaadaan ahay maxamed siyaad barre 60 aad adiga macalinka ahayd baan dhashay aniga hase ahaatee in ugu filan way aragnimo waa leeyahay 25 sanana qurbaan joogay oo dadka fakti horeba soo baxaan intii dagaalada wadanka ka socdaan ma tegin oo laba jeeroon marna hooyada u tagay marna wiilkeedu oo xanuunsan oo geey ka soo celay maahine siyaasadda ma gelin laakiin intaan hawsha ka waday wax igu filan waa ka ogahay hase ahaatee 15 sano qiyaas aan u maleeyahay anagoo urur bulugleed oo Rotterdam ka dhisan oo haween Soomaaliyeed ayaan kelmadaas hadda aan leedahay taariikhda waa la yaqaanaa gabdhihii joogay inta hadda aan sheegtaan sheegay gabar nooga timid bari iyo maqan gobolada dhexe ha nooga timid oo haween ah waxay waday oo aan iyada casulay oo aan ka wada hadlaynay bal wadanka ku dajin karna oo xaraaradu kacsaneed oo markaas heer xulees la gaaro oo aan anaga dhaxdeena anagoo wax walba isku sameeyay ayaa haddana maxaan sameyn karnaa markii intaas hadda aad tiriyeen aniga markaas hal waraan waxa laga yaabaa hal waxaan kugu khilaafsanay midaan hawiye iyo daarooda waxaan iri waa inuu hawiye iyo daarood horta isaaq la geliyaa waa inay hawiye iyo daarood horta isaaq la geliyaa markaasna iyaga ay iscafiyaan aniga saasaan u in la duuba ma jirin saxaafadna lama joogin laakiin gabdhihii joogay oo magacaabi karaa joogay shukri maxamuud afrax kamid ahayd oo bulugule iskula jirnay waris ay kamid ahayd luul sheekh ay kamid ahayd gabdhaha wada yaqaan inta meeshaan deganay wada yaqaanaan waayo marka aan rabno inaan wax dhisno in gadaal inta loo noqdo waxana dilay 20 sano hurgun aan rabno inaan ka gudubno ku noqoshadeeda waana hadalka hadda aan rabin inaan hadlo aan rabo inaan ka gudubno oo waliba ay ka gudbaan ragiina ay ka gudbaan
waayo in wax leesu sheego oo sararta la qalo wax waa ku badaawoobaan laakiin inta waxaan wax fudud oo laga gudbi karo loo joogo gadaal loogu naqaayo ma daawoobayo inta anaa saas iri maalintali iyo anaa kelmadaas dhahay lees dhahayo ma daawoobayo inaan warka nuxurkiisa ka raacno macnaha inta ugu waaweyn isla markaasna ninka warkiisu yahay positive ee jidkii fiicnay noo wado aan ku daba feeyno laakiin ninka markasta warkiisu yahay aan isla toofar kringiga taagnaano waxaa la dhahay isla toofar kringi markaan kuu fasiraa folodees waxa waaye inaad mar walba tahay dhibanahaas kama bixi kartid haddaad mar walba aad ku wareegaysiisid qof kastoo ku dhageystana jidkii meeshaasaad soo galeen marka walaalayaalow dadkaas negatiifkaas wada yaanan dhegaysanin ee dadka positifeka wada sida aadan oo kale aan ku daba feelno inta xunna ha naga harta kuwa dhintaan ku daraynaa waxaana loo baahan yahay inaan ka faa'iidaysano sida kaliya aan wax ku faa'iidaysan karo waxa waaye inaana dhihin aniga gobol hebel iyo kan hebel iyo kaas hebel iyo reer hebel aan ka tagno waa inaan ku fakernaa jidkii leegada midnimo soomaaliyeed ayay ka shaqaysa soomaalina magaca ah waxa waaye soomaal qofka reer baadiyaha hadduu cid soo safrayo uu soo ag istaago kidanka fadhiisto xoolaha la dhexgeli jiray caanaa loo maali jiray yuu yahay iyo xaguu ka yimid iyo kumuu ahaa lama dhihi jirin waxaan u baahannahay anaga marka annagoo ka shidaal qaadanayno aadan maxamed cali in jaaliyad soomaaliyeed oo midaysan oo mid ah oo aragti fiican oo dad aqoon-yahano oo muwaadiniin ah oo soomaalinimo ku dheehan tahay inaan ka abuurno yurub dalkan u gudbino taasoo ku shaqaynayso midnimadii soomaaliya jidkii leegada dhibkii iyo dhibaatadii la maray iyo baddaan dadkii ku dhammaaday iyo wixii xabad ee leysayna dadka ka dhaadhicinaya ani waxay la tahay jidkaas haddaan raacno oo jaaliyad soomaaliyeed oo yurub oo dhan ka dhisan oo carabaha u gudbo dalkii gudihiisa tagto oo midnimo soomaaliyeed ka shaqaynayso oo muwaadinnimo ay ku dheehan tahay oon qabiil lahayn oo reer hebel iyo kan aan lahayn laakiin dhibaatadii la maray saxayso ayaan u baahannahay taas sidii lagu dhisi lahaa in laga shaqeeyo aadan oo gacan ka geysto waa mahadsantiin hilow ayaan salaamayaa walaalkii aadan maxamed cali waxaan jeclahay mawduuca inaan sidaas aan u dhexgelin maadaama soomaaliya dhibaatadeeda iyo waxeeda aan wada ognahay laakiin wax yar ayaan jeclahay maaragtay halgankii aanu soo galnay inaanu wax yar aan ku faano oo dhalinyarada aan ugu faano aadan maxamed cali wuxuu inoo sheegay taariikhdiisa iyo halkii uu soo maray aniga laakiin waxaa idin sheegayaa hal qodob kaliya ayaan ka soo qaadan doonaa qodobkii ahaa gobolka banaadir ee waxbarashada oo la dhihi jiray markaa REO Regional Education Office xafiiska waxaa lagu furay dhowr shakhsiyaad ayaa lagu furay oo guddoomiye u yahay aadan maxamed cali anigu nasiib wanaag waxaan ka mid noqday dadkii garbihiisa ahaa oo hawsha la halgamay maxaa qabadhiwa markaa maxaan ku faanaynaa waxaan ku faanaynaa
waagaa iyadoo laga soo gudbay 10 sannadood oo xorriyadda magaalada muqdisho waxaa ka dhisnay ama ku yiilay dhowr dugsiyo oo faraku-tiris ah. siyaasadda markaa dowladda aynu qorshaysatayna wuxuu ahaa tacliinta inay guri kasto ay gasho. waxaan u halgannay in tacliintii Soomaaliya dib loo dhiso ilaa aanu gaarnay xaafad walba dugsi hoose dhexe laga sameeyo. tacliintaas waxayna gaarsiisay hawsheedana gaarsiisay ilaa la qoro af Soomaaliga, haddana af Soomaaligii la fidiyo. af Soomaaliga hadda aad ku faanaysaan oo Soomaali u soo haray ayaanu dhallinyaronimadeennii iyo xooggeenii iyo maskaxdeennii aanu soo gelinay. marka waa raad naga haray oo aan ognahay inaan soo qabanay. marka waxaan leeyahay dadka dhallinyarada ah oo hadda ay joogto, aniga jiilkeena waxaasaan soo qabanay. idinkana markhaati aad ka tihiin. markastoo la soo qaado waxaad tidhaahdaan berisamaadkaas dhalinyaro fara badan oo jiilkii waagaa joogi ahaa ayaa u soo dhididay. dhaqaale laguma qaadan jirin, survivala lagu shaqaynaya. marka berisamaadkaas anaga waxaa fursad inoo siiyey duruuftii waagaa tiilay. maxaa yeelay dalka wuxuu u baahnaa waxbarasho ayuu u baahnaa. bar ama baro, aqoontu waa iftiin. waxaasoo dhan waxay ka soo dhasheen howlahaas tacliinta oo aanu soo qabanay. ilaa ugu dambeyntii aadan maxamed cali uu ka noqday wasiirkii waxbarashada. anagana intaas waanu daba soconay, waxbarashada ku dhex jirnay. isku waqtina waa soo galnay, ilaa meel fog ayaan waxbarashadii iyo hawsheedii aanu ka gaarnay. marka waxaan leeyahay jiilkaanu idinka laftiina fursadii oo kale waad haysatay. waddanka oo xaaladiisa sidaa ay tahay, waxaa loo baahan yahay jiil hinjiya qaada oo wax reeba oo hadhowdii markii ay sidayna kale ay duqoobaan la dhihi karo maaragtay laga hadlo. markaa berisamaadkii idinkana aada abuurtaan ayaa la idinka sugaa. taasi waxa weeye mataqaanaa muddadii yareed intii qayb aanu ka soo galnay iyo waxbarashadii iyo hawshii aanu ka soo galnay. arrimaha Soomaaliya aniga ma rabo in waxyaabaha oo maaragtay waa dhacday iyo ma dhicin iyo sidaa ay ahayd iyo qabiil hebel iyo ma aha, ma rabo. laakiin qof kasta qofkii initiative la yimaado oo uu rabo inuu wax ku qabto, inta hadda kolley ma filayo aadan maxamed cali inuu dadka uu rabo inaan anaga ma aha, anagana lama hadlayo. wuxuu la hadlaa jiilka cusub. anaga waxba ma qaban karno hadda, allahuma haddii aan talooyin bixin karno. maxaa yeelay enerjiya la rabaa oo lagu shaqeeyo. enerjiyadii waagaa aanu lahayn waxaanu aragnay anaga habeeno iyo habeeno inaan lugayno, geed hoostiisa seexano si waxbarashada u fido, si doorkeena aan u qaadano. marka
waxaan leeyahay hadda marka waxaa la rabo in dhalinyarada ay qaataan fikraddan hadda la soo jeediyey oo kale oo ah in la meelmariyo fikraddan soo baxday. fikradda way soo baxday, way maaragtay cusub tahay, weli maaragtay waxay u baahan tahay in laga shaqaysiiyo. waxaa ka shaqaysiin karana waxa weeye dhalinyarada aqoontana lah isla markaana energy haya. marka anigan waxaa yani intaasina waxaan ku dareeyay mataqaana arrimahaas walaalkayga aadan waxaan aad uga xumahay in maaragtay waqti yar aan ku ogaaday inuu joogo. anigana xoogaa waxaan ku maqnaa dibadda marka caawana fursad ay tahay mataqaanaa inaanu maaragtay helo maaragtay warka waxaa idin leeyahay waxaan ku leenahay adigana juhdigan aada samaynaysid iyo adigoo da-daas ah aada wareegaysid yurub oo dhan hadda sidaa u maraysid laga yaabo in loo baahdo in loo qaaradaha kalena loo baahdo. kolley anaga ku garab taagannahay wixii howl ah, wixii talooyin ah, wixii qorshooyin ah waxaanu kula daba taagannahay oo maaragtay sidii waxaan ay u noqon lahaayeen wax howl lagu howlgeli karo. waad mahadsantihiin. aad baan ugu faraxsanaa caawa inaan ka soo qayb galo shirar oo wadaan dowladihii hore ee Soomaaliya ka tirsanaa sida wasiirkii waxbarashada aadan. anigu weligay horey Soomaaliga uma arag laakiin waqtiga iska xadidnaa mooyaan. waxaan rabaa horta 3 arrimood inaan u kala qaado. warka horta aad keentay waa arrin weyn. waxaan ka aragnay meelo badan sida South Africa way ka dhacday inuu sameeyay ninkii Desmond Tutu ninkii la jiray ahaa baadiriga inuu dadkii isugu yeeray in iscafiyaan. waxaan joognay Rwanda iyadana soo aragnay iyagana sidoo kale iscafiyeen. laakiin aan ilaa hadda waxaan fahmin waxa waaye يعني dadka jiilka laga hadlayo waa dhalinyarada hadda waxa Soomaaliya joogana waa dadka odayaasha ah ama maamulkooda hadii laga reebo dawladda uu ku jiro madaxweyne Xasan Sheikh. laakiin haddaad fiiriso oo isha raacdo qabiil kastaba ha ka yimaado meeshuu rabeen waa rag odayaal 60kii 70kii 80kii raggeena dhalinyarada ay muddo wadamada dibadda jooga waxna ku bartay qabiil kasta lagu tiriyo anaga qabiil waliga lima soo dhiyaata lima dhihin هولنا كورني أنا وفي عام برشة كسوقات الصومالية كلمة هدينا الرمارك الصومالي إلا بدلون قبائلات كي وحسوس سمية مثلا يدك الصومالية أنت بدوا بابين وحصو هراي رج أنا هذا مركان في هو وينه أنا قبيل كي بس يودي كانوا حقيقي هذا الرأي أنا قبيل ذاتك وحكوفة سينو ما هاي إنه يودي الله مرة لكن تي أقوتي هاي إن ديمقراطية اللي هم أمرتك إن لسدجيستو إن فكرة دي لقرا إن ديسكوشن للسمايو وحاسودن وتلا عن هاينو لكن وحن جعله وزير كنا تأكل اليوم جيل كلا لها الله يا ربع إن فرصة دي كقيب قاتان ما بهيستام فرصة وحكاية بكران أنا هذا وضع كان حكومتي أدار الصومالي إن وزير كان مغلو وأنا صومرة أضجي صوماليات أنا يوم كأبتر سنة إن هو وحن رأينا نحمرته وإللي سي دياريات دتكي يوقولدي يوحي أنا بري لها سيدي ماركتي أبتر سيمادي أموحي مركا عقبات دي ولو يتاجنته وحن أمسنا مركا فرصة هذا واحد تاجنته دتكي نتضواتك إلا اللي حنا يدي جرين إن هذا تاسي ودان شن يتوقع دم يسوع صعدا مركا نقطة دور الشهرة إن أنا فكر ذي إني دي بكرنه أيانا أنا يرجعك قبل مركا وحن دي لها إن لو قدر حساب تنكا سيدا وسوق بكل كرنام سياسة ده هذا الصعطة ومد أذك نقاله سياسة أبترسيو وحاسو أنا يرد ما أمي سنة حقيقي مركب فكرة ده سنة وحربين القدرة وفرصتي يدنا أنا ليش بالقصة أنا كم أصدقائي مقعي وأحمد مختار أدو ما تسيني هاي مدن علي محمد علي مركب وأنا قادمة تلديسي أنا كنا متجودي أوبرايزر waxaana sii gudbin doonaa fariintiisa laakiin halka su'aalan qaba waxay tahay odayaasha iyo dadka la heshiisiinay
taas weli ima caddo odayaasha hadda qaar waxaa jiro kaaba qabiilayaal baa soo baxay odayaal iyaga ismagacaabaa jiro marka sidee lagu kala saari karaa odayaashii saxda ahaa ee matalayay haddii hadda waxaan aragnaa soomaaliya oo kale waxaa ka dhacday odayaal beelihii matalayay baa lasoo aruurin dib-u-heshiisiin baa la sameeya laleeyahay laakiin waxaad arkaysaa weli dhibaatadii way jirtaa sidee marka lagu kala saari karaa odayaashii saxda ah ee talada ka goysay iyo kuwii kaabaqaqablayaashii ah taas way su-aasha marka hore waxaan aada u mahad celinayaa wasiirkeenii waxbarashada soomaaliya xilligii soomaaliya aadan maxamed cali oo aan leenahay tabliiqan oo soomaali ka dhex bilaabay ilaahay ajri xasanaad ha ka siiyo runtii waa arrin dhiirigelin weyn leh oo qofkii waktigiisa usoo horay usoo safray wakti dheer usoo gelay iyadoo urur iyo hay-ad iyo wax saacidaya aysan jirin taasina waxay kutusaysaa ummadda markii mar walba dhib dhaco inaan maaragtay xagga ilaahay aan laga quusanin oo mar walba dad u dhaqaaqa ummadda ay jiraan runtii waxaan maaragtay muxuu ahaa mar labaad iyo mar saddexaad ba kaaga mahad celinayaa waktigaas aad usoo hortay ilaahayna bedelkeeda ajri xasanaadka kugu bedelo intaa kadib wax badan ayaa horta runtii laga hadlay heshiisiin soomaaliyeed mar walbana runtii in la quusto bani aadamka qofka bani aadamka intii uu nool yahay inuu quusto maaragtay ma aha waa in mar walba uu rajo qabo kolley waktigii hadda lasoo dhaafay oo adigoo dhowr iyo 20 sano ah oo soomaaliya ay dowladnimadeeda burburtay qofkii maanta jooga ee wadamada hadda aan joognay 30 jirka ah kama sheekayn karo dadka hadda ka sheekayn kara xilligaasi waa sii yaraanayaan runtii dadkii soo baxo qurbaha soo galan qof walba markuu ka quustay xalka uu qaatay waxay noqotay wadnihu meel baad degan tahay ama waddan yurub ahaa joogtaa meeshaas waxba kama soo socdaane halkaaga salka ku hay waxaan xasuustaa xamar aydiyadii markay ahayd sagaashanadii lagu soo dhawaa oo markii culeysyada dowladda la sheegayay oo dadku ay soo dhoofayeen oo Canada iyo dadka galay Mareykanka dadka xooggiisa magaalada aad wax u fahamsanaa ama toontoolka ama markaa magaalada joogay xooggiisa wuxuu baran yahay North America especially Canada dadka xagga jooga marka la hadasho qaarkood xataa waxa yar rajada lagu soo noqon karo ama ay ku imaan karaan marka runtii shirar badan waa dhaceen is aragtiyo badan waa yimaadeen laakiin mar kasta muxuu ahaa tan hadda wasiirku caawan noo keenay waa mid muxuu ahaa ka baxsan mar walba shirarka iyo madaxweynaasha lasoo doorto nin kasta wuxuu qabtaa heshiisiin iyo beel isu keenid laakiin arrimo siyaasadeed noqdaan shiraa la qabtaa hadda xamar wiigga hore hadda 4 maalmood 3 maalmood kor shiraa ka socday ka hor dowladdii cabdullaahi yuusuf shirar noocaasaa la dhigay laakiin wax ka soo kordha ama wax ka yimaada ma laha intaas waxaa u sabab ah waxaa loo baahan yahay arrin heshiisiin ah shacabka iyo dadka inay ka timaado UN-na waxba looga raadin dhaqaalo oo dadka shacabka ayagu ay isku tashtaan inta laakiin lagu xiran yahay arrin siyaasadeed oo shacab lagu raadinayo ama UN laga raadinayo waxaan isleeyahay weli waxaa meesha ka soo baxaya in dhaqaala doon iyo waxay jiraan wasiirka aniga waxaan ku taageersanahay oo ay tahay in lagu taageero ra'yigaas oo keenay inuu qurbaha ka bilowdo maadaama qurbuhu imkaaniyaadka ay jiraan shirarku dadka say isku magaalihiin ay u abaabuli karaan arrintaas aadan maaragtay u ayidayaa iyadaas halkaa laga shaqeeya ayaana waddanka gudaheeda lagu dabaqi karaa runtii qof keligiis wax qaban karana ma laha ummadda meel walba iyo qof walba fikirkiisa in la dhegeysto dadku ay isu sabraan haddaan la helin tanaasulaad oo dadku aysan isu tanaasulin oo qof walba hadal xun ku yidhahda aan la boodo weligeed ma gaarin waxaa loo baahan yahay tanaasulaad kan xun iyo ka toosan labadaba in la isku wado marka wasiirka aadan ugu mahad celinayaa waana garab taaganahay heshiisiin dhab ah oo ummadda la dhex dhigo iyo sidii lagu dhex dhigi lahaa baad ka sheegaysay dib u heshiisiintaas waxay u baahan tahay in structure iyo qaab loo yeelo qaabka iyo structureka waxaa hagi karana waa dowlad ee ummad caadi ah oo shacab ah ma hogaamin kara dowladdeena iminka jirta priority bay samaysay ama mudnaan ayay samaysay mudnaanaha ay samaysay 6 bay ahayd markii dambena 3 bay kasoo dhigtay kuma jirto dib u heshiisiin marna waa kama naan maqal dib u heshiisiin dhab ah ayaa inoogu jira mudnaamaha koowaad
haddaba haddaanay dowladdu ugu jirin adiguna aad odhanaysid dowladdu waa inay hogaamiso sidee isu keenayaan dee waxa aad damacsan tahay aad leedahay waxbaa lagu hagaajin karaa iyo mudnaanta aanay dowladdu siinin intay isu keenay waa su-aashaasaan weydiinaya waana mahadsantahay وسؤاله هرتا كل واحد رأي وين رأي السوجي دينا وين قاضي بعد كوا في الصناعي لما مرود برواي أنا عطيه كريم أنت كري صاحبتي وحكاها اللي الواعيين فكرتي لما مرود بحيطه سنة بقى عبد القادر علي wuxuu yidhi waxaa junuuba South Africa waxaa isu taagay baadarigii Tutu waxaan rabaa inaan u sheego waa runtaa isagu isuba taagin shacbiga baa isu taagay axsaabtaa isu taagtay dabeedna maadaama isagu kaniisadda madax ka ahaa kaniisadda sofarka ninka ugu weyn uu ahaa nin magac kula lahaa uu ahaa yaa isaga looga dhigay madax inuu usha u qaato innaga marka dhibaatada ina haysataay waxa weeye wadaadadeennii kuwa islaynaya wey kuwa masaajidada xiray wey kuwa culimada laayay wey haddaay hadalkayga waxaan idhi culimada wanaagsan marka isba Tutu oo kale oo dhirkaas fiican waa ina ku jiraan laakiin waxay u baahan tahay inaynu u qirro in culimadaasu yihiin kuwa wanaagsan si ay u adag tahay aynu uga soocno kuwa kale oo aan fiicnayn su-aal baa soo raacisay waxaa tidhi annagu kaalintaanu ku leenahay shabaab haddaanu nahay dhalinyarada gudihii odayaal baa haysta odayaal baana wax soo doorta kaalinta aanu ku leenahay maxay tahay sidee uga qayb geli karnaa baad hadalkaaga soo doorta waxaan rabaa inaan kuu sheego laba tilaabo haddaa qaado horta dhibaatada ina haysata waa dab baxaya wey dabkaa baxaya yaa xaba looga dhigaa dhalinyarada looga dhigaa horta marka ugu horeysa waa inaynu isku gubaabinaa inaynan xaabadi noqon kuwa gurigoodii iyo mustaqbalkoodii la gubayahay inay dhalinyaradii waa qodobka labaad dhalinyaradu iyagaa wax u sheegi kara dhalinyarada kale inaad kala hadashaan wararka oo tiraadaan dhalinyaradu waxaad ku cayaaraysaan mustaqbalkiinni mid aqooneed mid mustaqbal mid guur mid waxoo dhan waxa weeye waxa la gubayaa oo lagu cayaarayaa ta odayaasha annaga hal baana la kaga cayaaray keliya annaga waxaana la kaga cayaaray beshiin ahaan meeshaanu ku nasannahay baana la ka gubay meeshaanu ku nasan lahayd beshiin ahaan baana la ka baabi'iyey laakiin kuwa muddada dheer rabay inay dariiqaanu soo maraan oo lagaga cayaaray waa shabaab arrintaa marka waxay u baahan tahay kaalinta aad ku leedihiin waxa weeye kow inaydinaan xaabo u noqon waxay dal ka socda ee aad mowqif wanaagsan oo shariifa ka qaadataa oo islaaxa wadaaniin nabadayntu afka haddaa ka wado haddaay hadalkayga waxaan ku daray fadhi kudirirka makhaayad